muuqaalka waxaan ku eegaynaa khilaafka ka taagan mandaqada geeska Afrika iyo gacanka cadmeed. waxaan diirada ku saaraynaa si gaar ah hogaamiyaha wadanka Eritrea siyaas Afwerqi iyo doorka uu ku leeyahay arrintan. sidaan ognahayba Ethiopia waxa ay muddo waday handadaad iyo maaragtay hanjabaad ay ku doonayso bad isla markaana ay u gudbinayso wadanka Eritrea, iyada oo ra'iisul wasaaraha arrinta calanka u siday Abiy Ahmed uu in badan ku celceliyay in ayna sinaba ayna maaragtay Ethiopia u ahaan karin bad la'aan. hindisahan Ethiopia ay ku doonaysay badda ma ahayn mid Ethiopia ka yimid, balse waa mid ay maaragtay dabada ka riixayaan wadamada Israel iyo Imaaraadka Carabta. Ethiopia sida xusataanba waa takoor waxa ay isfaham maaragtay la gashay maamulka Somaliland xilliga uu gaabinayay Muuse Biixi Cabdi. MOU-gaas waxaa la soo afjaray kadib markii maaragtay dowladda Turkiga ay ku heshiisay Soomaaliya iyo wadanka Turkiga ayna soo saartay bayaankii loo yaqaanay Ankara Declaration. Abiy Ahmed haddaba waxa uu bilaabay weerar af iyo diblomaasiyad ah oo ka dhan ah Eritrea, isaga oo marar badan goodiyay dagaal. waa sax oo arrinta waxaa qayb ka ahayd khilaafka labada dal ee soo jiitamay muddada dheer, ama aan idhaahdaa khilaafkii ka bilaabmay maxaan ku idhahdaa heshiiskii Pretoria ee lagu soo afjaray ama lagu soo gabagabeeyey dagaalkii Tigreega iyo dowladda dhexe ee Ethiopia. dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa kor u kacday xiisadda labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea ilaa heer ay qarka u fuuleen in ay dagaal galaan. Afwerqi waxa uu bixiyey waraysiyo badan oo uu ku sharaxay in xididka mushkiladdu ay tahay damaca Imaaraadka ee dhabarka qorshaha saanuniyadda ama qorshaha dhabarka ku haya wadanka Israel. dhowr jeer ayuu diray qayladhaan. waxaa jiray dadaallo ay sameeyeen Maraykanka iyo dalal kale oo hoos loogu dhigayo xiisadda ama la doonayay ugu yaraan in laga baaqsado dagaal. intaa waxaa dheer, muddo ka badan 2 sano ayaa dagaal ka socday dalka Suudaan, kaas oo sidoo kale qayb ka ahaa mashruuca saanuniyadda iyo Imaaraadku ay wadaan. kadib markii kooxda RSF ay la kulantay jabkii ugu weynaa ee lagaga qabsaday caasimadda wadanka Khartoum iyo gobollo kale, waxaa Imaaraadku u sameeyey gurmad military oo aad u baaxad weyn, iyaga oo kooxda RSF loo keenay saanad culus iyo xulashada u shaqaystayaal shisheeye oo fara badan. arrimahan waxa ay bedeleen isla egta dagaalka oo RSF waxa ay qabsatay magaalada Al-Fashir iyo guud ahaanba gobolka Darfur. sidoo kale waxa ay guluf hor leh ku fureen gobolada Kordofaan. dhinaca badda cas, Imaaraadku waxa ay ciidameeyeen jasiiradda Hanish ee dalka Yemen iyo jasiirada kale oo kulaalaya wadanka Eritrea. Afwerqi waxa uu dareemay in dagaalka Ethiopia aanu noqon doonin dhulka oo kaliya ah ama bariga oo kaliya ah, balse sidoo kale uu duulaan kaga iman doono dhinaca badda. dhinaca kale, Amiir Mohammed bin Salmaanka Sacuudiga ayaa 18 iyo 19 November waxa uu safar ku tegay magaalada Washington ee dalka Maraykanka, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. amiirka oo horay Trump ula galay heshiis uu Sacuudigu ku maalgashanayo Maraykanka lacag dhan $1 trilyan oo dollarka Maraykanka ayaa Trump ku riixay ama ku cadaadiyay in uu wax kala qabto joojinta dagaalka Suudaan. Trump waxa uu sheegay in taasi aanay awal ku jirin qorshihiisa, hase yeeshee uu yeelayo qalabka Amiir Mohammed bin Salmaan. qalqaaladii uu Mohammed bin Salmaan ka sameeyey Washington ee ku aadanayd joojinta dagaalka Suudaan waxa ay aad uga xanaajisay Mohammed bin Zayed ka Imaaraadka. si uu taas uga jawaabo, Mohammed bin Zayed waxa uu cadaadis saaray kooxda gooni goosadka ah ee STC ee ka jira koonfurta wadanka Yemen, isaga oo amray in ay wada qabsadaan koonfurta Yemen oo ay galaan dhulka u dhiman ee Hadramaut iyo Almahra. 4 bishii hore ee December, kooxdii halaagsantay ee STC ee koonfurta Yemen ayaa duulaan ku qaaday gobolada Hadramaut iyo Almahra. Sacuudigu waxa uu dareemay halis lid ku ah amniga qarankiisa. 9 December waxaa magaalada Riyadh tegay madaxweynaha Eritrea siyaas Afwerqi. si adag ayuu ula hadlay Amiir Mohammed bin Salmaan, waxa uuna sheegay in gobolka ay ka socoto arrin halis ah oo Sacuudiga looga baahan yahay in uu qaato hoggaanka. markii uu soo dhammaaday kulamadii Sacuudiga iyo siyaas Afwerqi, waxa uu siyaas Afwerqi sii daayay war-saxaafadeed oo ku dhaliilayo boqortooyada Sacuudiga oo uu ku sheegayo in boqortooyadu ka gaabisay kaalinta kaga aadanayd mandiqada, waa sida uu hadalka u dhigay.
waa arrin ka baxsan habdhaqanka diblomaasiyadda marka in caadi lagu fiiriyo, laakiin waxa uu Afwerqi doonayay in uu Amiir Maxamed bin Salmaan gaarsiiyo heer aanu dib uga laaban karin ama aanu maaragtay wax dambe dhowri karin. Haddaba 26 December 2025 ra'iisul wasaaraha Israel ayaa muuqaal la soo duubay madaxweynaha maamulka Somaliland iyaga oo isdhaafsaday waxa ay ku sheegeen aqoonsi. Arrintaas waxa ay noqotay dhulgariir ruuxay gobolka, waxaana si toos ah faydmay qorshaha dhagarta ah ee lala damacsan yahay gobolka Geeska Afrika iyo maaragtay gacanka cadmeed wadamada ku teedsan. Waxaa la sameeyey dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu maaragtay dhaleeceeyey aqoonsiga Israel ee Somaliland iyada oo la hakiyey dowlado doonayay in ay aqoonsadaan Somaliland. Dowladda Eritrea waxa ay bayaanka cambaaraynta aqoonsiga Israel ee Somaliland soo saartay 2 maalmood kadib. Baahitaankaas waxa uu diray fariin iyo sanyaale ama signal kaas oo ku aadan in uu xun yahay cilaaqaadka Eritrea iyo Soomaaliya ee xilligan. Tani waxa ay muujinaysaa in siyaas Afwerqi uu aad u salugsan yahay habdhaqanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo macaamilkiisii Ethiopia, ma in aanay Soomaaliya hiil diblomaasiyadeed u fidinin Eritrea xilligii ku socday dagaalka diblomaasiyadeed iyo weerarka afka ah ee kaga imanayay Ethiopia. Ma aqaan haddii filla Soomaaliya ay fahantay fariintaas. Sidoo kale bayaanka Eritrea waxaa ku jiray midnimada Soomaaliya in ay la mid tahay siyaasadda hal Shiine one China policy, tan oo ah fariin ku socota Beijing oo la doonayay in si xoog ah loogu soo daro dagaalka jihada iyo jilinta mashruuca sahamiyadda ee ka socda mintaqada. Yeelkeeda wax walbaba waxa ay isbedeleen 4 maalmood kadib. 30 bisha December dowladda Sacuudiga waxa ay duqeyn ka furisay magaalada Kulla, halkaas oo Imaaraad ku geeyay maraakiib siday saanad dagaal oo u socday kooxda STC. Tallaabadaas uu qaaday Sacuudigu waxa ay bedeshay qorshihii socday oo dhan, waxaana Imaaraadka lagu qasbay in uu 24 saacadood kaga baxo Yemen. Wixii intaas ka dambeeyay waxa Sacuudiga uu sii waday howlgalkii ka dhanka ahaa kooxda STC ee looga sifaynayay Hadramaut iyo Al-Mahra, kadibna laga wada saaray koonfurta Yemen iyadoo ugu dambeyn baxsaday hogaamiyihii gooni-goosadka STC ee Aydruus Subaydi, kaas oo haatan ku sugan dalka Imaaraadka. Tallaabada Sacuudiga kaliya ma fashilin qorshihii gooni-goosadka ee Yemen, sidoo kale waxa ay dhabarka ka jebisay dhammaan mashruucii saanuniyadda ay ka waday mandaqada. Waxaa dib u degay dalalkii doonayay in ay aqoonsadaan Somaliland marka guusha Yemen ay noqotay maaragtay waxa loo yaqaano deterrence ku socda dalalka kale ee qaybta ka ahaa mashruuca guraacan. Hadda waa u fashilmay mashruucii saanuniyadda ee qaybinta Yemen iyo Soomaaliya. Sidoo kale Abiy Ahmed waa la edbiyey, waxa ayna dadku qasabtay in uu wadanka Djibouti oo uu in badan ka warwareegayay uu maaragtay kala soo dhilgareeyo deked ay Ethiopia isticmaasho, taas oon ahayn siin balse ay wax kala soo degaan. Waxa uuna tegay dekeda Dooraale, halkaas oo la filayo in laga maalgeliyo deked cusub ama laga hormariyo Ethiopiana ay wax kala soo degto qiimo jaban. Haddaba macalinka weyn waa siyaas Afwerqi, waxa uu ahaa ninka riixay Maxamed bin Salmaan mucaamalada ama isla egta. Waxaa bedelay talada Afwerqi uu siiyey Maxamed bin Salmaan iyo duqeyntii Kulla. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka. Hadda wixii ka dambeeya waxaan soo gelin doonaa barnaamijyo xiiso leh iyo xaaladaha marka ka taagan mintaqada Geeska Afrika. Fi amaanillah.